بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشر كيني Basic Anatomy and Physiology waxaan ku baranaynay qaybaha jirka bini'aadamka hab dhismeedkiisa iyo qaabka u shaqeeya insha Allahu tacaala sidoo kale wuxuuna ku baxayay luuqadeena afka Soomaaliga insha Allahu tacaala afka Soomaaliga waxa weeye waa arday badan iyo dad badan ay u sahlantahay insha Allahu tacaala maadaama Englishka dadka aanan wada aqoonin insha Allahu tacaala afkeena Soomaaliga ayaan qaybtan asaasiga aan ku wadaynaa insha Allahu tacaala iyo qaybaha soo socdaba afkeena hooyo inaan ku bixino isku dayno insha Allahu tacaala luuqadeena ayaa noo wacdaxsan intaa kadib casharkeeni afraad waaye kii saddexaad waxaan ugu soo hadalnay wax loo yaqaano unugyo taasoo anaga aan ku soo sheegnay microscopic anatomy inay ka mid tahay waxaad arkaysaa qayb walbo anatomy and physiology aad ka baranaysid waxay leedahay taqasus gaar ay leedahay oo dhakhtar ku taqasuso ama shaybaariso ku taqasuso ay leedahay qaybihii hore aan ka soo baxnay sidoo kale microscopic anatomy markay noqoto waxay hoos tagaysaa insha Allahu tacaala qaybahan laabka ah sida cytology waa maado lagu barto laabka lagu taqasuso qofka bartan waxaa loo yaqaanaa cytologist sidoo kale qaybahaas oo kale waxaa hoos tagi jiray histology iyo histopathology ayaa hoos tagi jirta insha Allahu tacaala histology waa maado lagu baranayo cadka iyo ama nuudaha yaryar lagu baranayo waa insha Allahu tacaala cadadka yaryar oo aan lagu arkaynin indhaha caadiga ah marka qaybta labaad markaan ka hadalno ay tahay histopathology iyo cadka meesha laga soo jaro haddii xanuun uu jiro iyo haddii normal uu yahay aan xanuun jirinba insha Allahu tacaala maanta waxaynu ka hadli doonaa biidnillahi tacaala habdhiska lafaha hadduu ilaahay insha Allahu tacaala skeleton system ayaan ka hadli doonaa insha Allahu tacaala waana cashirkeeni afraad habdhiska lafaha wuxuu ka mid yahay habdhisyada jirka bini'aadamka oo ku shaqeeyo oo lagama maarmaanka u ah hadduu ilaahay insha Allahu tacaala lafahaas la-aantooda aadanaha ma uusan socon lahayn ma uusan dhaqaaqi lahayn ma uusan ahaan lahayn mid qaab leh taasoo macnaha ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala balse awoodda alle markaan ka hadalno wuu socodsiin karaa lafa la-aan wuu dhaqaajin karaa laf la-aan taas cidna iskuma hayso laakiin caqligeena markuu xisaabtamayo ay tahay waxa ka baxsan bini'aadamka laf la-aan inuusan qaab iyo waxba aan yeelan lahayn insha Allahu tacaala awoodda allana waa gooni intaa kadib lafaha barashadooda dhakhaatiir ayaa ku takhasusta sidoo kale marka laga hadlayo dhakhtarka lafaha lagu leeyahay wax kale maahan maadadan oo lafaha si fiican u soo bartay asigoo awood u heli kara kabidooda shubidooda bedelidooda iyo wax waliba oo lafahaasi xanuun oo ku dhaco inuu xalliyo bacdallahi subxaanahu wa tacaala lafaha marka maadooyinka lagu barto ama maadada lafaha lagu barto waxaa loo yaqaanaa osteology osteology markaan ka hadlayno waa barashada lafaha ayaa laga hadlayaa waa saan horey usoo sheegnay qayb weliba oo ka tirsan anatomy and physiology inay leedahay takhasus gaar ah iyo dad gaar inay ku takhasusayaan insha Allahu tacaala qaybihii hore waxaan soo sheegnay medical labka inay ku takhasusi jireen tanna hadeertan waa dhakhaatiirta qolada medicineka qayb ka mid ah weliba qaybtoodii lafaha insha Allahu tacaala waxaa loo yaqaanaa osteology waa maadada lagu barto markuu asiga bartan waxaa loo yaqaanaa osteologist ayaa loo yaqaanaa qof kusoo takhasusay lafaha waa marka insha Allahu tacaala sidaas ayaan ula soconaynaa qof dhihi kara lama arko caafimaad oo dhan aniga dhameeyay lab hadday tahay qaybaha kale gedisan medicineka qaybaha kale gedisan nursingka uu leeyahay anyway midwifery iyo gynecology iyo waxay rabtaa hadduu ilaahay yiraahdo qof dhihi kara intaas oo dhan waa isku wada qabanayaa ma jirto insha Allahu tacaala sidaa ula socda marka qaybo gaar ayaa lagu takhasusaa marka qaybteena human anatomy and physiology oo basic aan ugu baranaynay waxayna ka mid tahay qaybaha kala duwan anatomy and physiology-ga jira oo animal anatomy and physiology-ga
waxaan ka hadalnay oo hadda aan sheegnay waa osteology, maadada lagu barto lafaha. Laakiin anaga insha allahu tacaala habdhiska overview ahaan ama concept guud inaan ka qaadan aan dul marna isku dayna insha allahu tacaala. Faham guud ayaanu ka qaadanaynaa, waana wuxuu noqon doonaa cashirkeeni koowaad qeybta lafaha anatomy and physiology aan kaga hadlayno. Okay, lafaha marka laga hadlayo caruurta markay dhalanayso waxay ku dhashaan 300 oo lafood. Bini'aadamku marka laga hadlayo 300 oo lafood ayuu ku dhashaa markay caruurnimadiisa hadduu ilaah yiraahdo. Markuu qaangaarin waxay noqdaan 206 lafood ay iskugu soo aruuraan. meeshaas waxaa u dhexeeyo 94 lafood ayaa u dhexeysa insha allahu tacaala. sida ay ku noqotay dad badan inay isweydiiyaan baa suuragal ah. qofkan wuu yaryahay 300 oo lafood jirkiisa maxaa geliyey, qofkan wuu weyn yahay 206 maxaa ka dhigay. arjaw tiro badan ayaa jirto ama isku lafooyin badan oo isku dhalaalaya ayaa jirto hal laf isku noqona insha allahu tacaala. sidaas la ajligeeda markii caruurnimadana way qaybsanayeen dhowr lafood ay ahaayeen. markuu qofkii soo qaangaaro oo weynaadana maxay tahay hal lafay isku noqon doonaan insha allahu tacaala. lafaha culeyska jirka bini'aadamka waxaa lagu tilmaamaa 15% inay culeyska ka yihiin. culeyska jirka bini'aadamka uu leeyahay 15% waa lafaha insha allahu tacaala, sida inaan ula socono. lafaha shaqooyin kala duwan ay jirka bini'aadamka ay ka qabtaan, sida kow maxay tahay difaacidda. difaacidda maxay difaacaan xubnaha muhiimka ay noo difaacaan, sida wadnaha oo kale, sidoo kale kelyahoo kale, sambabadoo kale iyo waxyaabaha la midka ah. xubnahaas muhiimka ah bini'aadamka aanan ka maarmin. idan wadna la-aan ma noolaan karo, sidoo kale kelyo la-aan ma noolaan karo. kelyada wax soo filtareeya ama dhiiga kaadida iyo qashinka iyo waxyaabaha dhan kasoo saara waa kelyada. wadnaha waad aragteen kuwa bambeeyo waa insha allahu tacaala. qeyb walbana waxay la xiriirtaa qeybta kale hadduu ilaah yiraahdo. macnaha system ama macnaha qaab dhismeed qaabka kale ka maarmo ma jiro insha allahu tacaala bini'aadamka hadduu ilaah yiraahdo. all wada xiriiray leeyihiin. number 2 markaan ka hadlayno qaab dhismeedka jirka, waayo jirka markuu laf uu leeyahay hilib ku dhagan yahay, qofkan bini'aadamka waa qof aad iyo aad u qurux badan waaye oo ilaahay suuradeeyay. fa axsana suwarakum waaye, ilaah baana suureeyay insha allahu tacaala. marka lafahaasi waxay naga saacidi doonaan quruxdeena iyo waxayna inay soo baxaan insha allahu tacaala. lambarka 2 waaye. lambarka 3 waxay tahay kaydin in lagu sameeyo iyo waxyaabaha qaar bedelaad in lagu sameeyo macaadinta sida calcium oo kale in lagu keydiyo lafaha gudahooda insha allahu tacaala. taasoo ay muhiim u tahay qaab dhismeedka lafaha insha allahu tacaala iyo caafimaad ahaanba. sidoo kale number 4 ama number 4 waxay noo noqonaysaa insha allahu tacaala dhaqdhaqaaq. in qofkan dhaqdhaqaaq uu sameyn karo insha allahu tacaala, inuu socdo, inuu wax soo qabsado. waxyaabahaas oo dhan waxaa ka saacidayo lafahaas ayaa ka saacidayo. idan gacantaada inaad wax kusoo qabataa rabtaa maxay tahay laf la-aan wax ma soo qaban kartid. hilibkaas keligiis hadduu yahay wax ma soo qabsan kartid. lafahaas dhaqdhaqaaqaas iyo waxyaabahaas oo dhan ayagaas ilaah ugu talgalay subxaanahu watacaala. sidoo kale numberka 5 waxay noo sameynayaan inay noo soo saaraan ama ay ka qayb qaataan unugyada dhiiga cascas inay soo saaraan insha allahu tacaala. marka lafaha dhaadheer dhuuxooda ayaa laga soo saaraa. sidoo kale lafaha marka laga hadlayo meelaha ay ku kala yaaliin waxaa loo kala qaadaa 2 qeybood, axial iyo appendicular. axial markaan leenahay waxay u qeybsantaa ilaa 3 qeybood. vertebral column laf dhabarta, ribs cartilage ama qeybaha feeraha, iyo skull qeybaha madaxa iyo wejiga isku jira ayaa waxaa la yiraahdaa skull ayaa la yiraahdaa. qeybaha lafaha qaab dhismeedkooda marka laga hadlayana waxaa loo qeybiyaa ilaa iyo dhowr qeybood, sida 1 maxay tahay lafaha dhaadheer, 2 maxay tahay lafaha gaagaaban, 3 maxay tahay lafaha balbalaaran, 4 maxay tahay lafaha qaabka aan lahayn, iyo sidoo kale 5 waxa way lafaha sida sisinta u eg. insha allahu tacaala hadduu ilaah yiraahdo cashirkeenan meeshaan ku ekeyneynaa. cashirka soo socda waxaan ku balbalaarin doonaa insha allahu tacaala
qeybaha lafaha ay leeyihiin iyo meelaha ay ku kala jiraan insha allahu tacaala. waa qeybtii koowaad aan ku baranaynay lafaha. cashirkeenan anatomy and physiology markaan ka hadlaynana waa casharkii afraad biidn illahi tacaala. aad iyo aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.